Shirkadda Dalson Market oo ah shirkad ganacsi oo ay leeyihiin dad Soomaaliyeed ayaa u dabaaldegtay 2 sano guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay. Shirkaddan ganacsi oo munaasabadeeda ku qabsatay dalka Jarmalka oo xarunteedu ay tahay ayaa waxaa ka soo qayb galay dad isaga kala yimid gobollada Jarmalka iyo weliba sidoo kale dad ku xiran goobta ay degan yihiin. Shirkaddan oo ah shirkad ganacsi isla markaasna dhowaan laga furay dalka Jarmalka gaar ahaan magaalada Fomis ee gobolka Rheinland-Pfalz ayaa dadka ka soo qayb galay hadalla halkaasi ay ka jeediyeen waxay ku dhiirigeliyeen dadka Soomaaliyeed ee ku dhiiriday inay ganacsi ka furtaan qaaradda Yurub gaar ahaana dalka Jarmalka. Mulkiilayaasha shirkadda Dalson Market oo u dabaaldegaya 2 sano guuradii ka soo wareegtay ayaa sheegay inay u baahan yihiin weli dhiirigelin si ganacsigooda uu noqdo mid hirgalay maadaama ay tartan kula jiraan dad kale oo ajaanib ah oo shirkado ku leh dalka Jarmalka. Sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay dadkii ka soo qayb galay oo isugu jiray culumoodiin iyo ganacsato iyo sidoo kale dad odayaal ah oo iyaguna dhiirigeliyey dadka halkan shirkaddan 2 sano jirsatay u dabaaldegaya. ogtiin maantay waxaan u dabaaldegaynaa sanad guuradii labaad asaaskii Dalson Market. waxaad ka warqabtiin Dalson Market xilligii la furaayay waxay ahayd xilli aad u adag. waxaa la furay 2020kii waa xilligii corona uu bilaabmay, waa xilligii ugu dhibka badnaay ee na soo maray. kadibna waxaa ku xigtay 2021 sidoo kalena ayadana waqti adag ahayd, laakiin waxaan ku guuleysanay inaanan Soomaalida Fomis iyo nawaaxigeeda inaanan dhibaatada aanan ku fiirsanin oo aan ka caawino inay helaan meel ay waqtigaas adag ay ku moodaan. alxamdulillah waana ku guuleysanay. waxay ahayd keliya meesha keliya Soomaalida u furneed waqtigaas. waxaa ka soo sheekeeyay walaal Maxamed Xuseen runtii oo si qurux badan ugu warramay oo ah raggii budhigayaasha u ahaa ganacsiga Soomaalida Jarmalka oo runtii aan aaminsanahay in fikraddan in ganacsi Soomaalida ay samaysato raggii budhigayaasha u ahaa uu koow ama labo ama uu horeynba ka yahayba isagana oo mahadcelinayaa. intaas kadib mudanayaal iyo marwooyin sanad guuradii labaad iyadoo laga soo baxay corona oo lagu jiro xilli adag oo shirkadii ugu waaweynaa Jarmalka ay khasaareen inaan inaguna caawa farxayno dabaaldegayno sharaabayno yacnihii oo kifaaxayno. runtii waxay noo tahay farxad bay noo tahay, dhiirigelin bay noo tahay. ilaahay baan uga mahadcelinaynaa, idinkana waa idinka mahadcelinayna maadaama garab istaagteen. aad iyo aad ugu mahadsantihiin, waana ku faraxsannahay. dukaankana waa aad iyo aad garab baan siinaynaa. waa dadka dukaanka keliya oo waxqabadka maaragtay dadka dhalinyarada dadka waaweyn yar iyo weyn yani rag iyo dumarba wax u qabtaan. annagana waa ku faraxsannahay, garabaan siinaynaa insha Allah. waxaan leenahay hor u socda, ilaahayna garabkiina ha galo. aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo sanad guurada labaad ee Dalson Market. waxaan maanta ku faraxsanahay intaas Soomaali maanta halka isugu timaaday. ilaahay waxa uga baryayaa sanado badan inay sii jirto. ininkana waan ku faraxsanahay inaan meeshaas kugu nimaadno. khayr badan ayaan iri jirnay. sanad guuradii labaad ee Dalson Market iyo hay'addeeni Seko. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa Maxamed Cabdullaahi, Maxamed Xuseen, Naasir, dhammaan intii ka qayb gashay iyo inta noo soo agaasintay xafladdan. waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa dambe ilaahay caafimaad iyo barwaaqo nagu wada gaarsiiyo. midii hore u sii socota ee Soomaalina kulmisa Allah ka dhigo. soo dhawaada marka kale waxaan hadda iska leh raggii walaalo ahaa ee fikraddan aas-aasay ganacsigan asigoo sida walaalkayba garabkayga taagan iyo walaalkay Maxamed Cabdullaahi xilli adag soo shaqeeyay. sidaan ka warqabno Dalson kaliya ma ahayn ganacsi waxay ahaaday rug wax badan isku haysay. runtii waxaa farxad weyn noo ah maaragtay meeshaan sidaas maaragtay noo shaqeyso. mar koowaad iyo mar labaadna waxaan leeyahay hambaliyo aan leeyahay. Dalson ha jirto, ha shaqeyso insha Allah. way ku guuleysatay ha noqoto midii meelo kale toodo fara badan iyo horumar kale oo fara badan oo balaaran ee maaragtay ummadeeda gaarsiisa ayaan maaragtay iyo mustaqbalkooda ay faa'iido dhammaan walaalaha soo qayb galno. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. هذا أوقات سنة حفلة قيمة بدنا أنا هاي ماشى وصوت جوا ماشى ومال باركتي
aad Soomaalida ugu fiican dukaan aad qiimo leh oo ma sha Allah anigana aan ku xiranahay dhamaantiina Cabdi Naasir Yaasiin SBC Germany